أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan idiin wadaa faa'iidooyinka cajiibka ah ee isku cunista timirta iyo caanaha. Cilmi baarisyo kala duwan ayaa daahfuray in midhaha timirta ay ku jiraan xaddi aad u badan oo ah fiitamiinno, macdano iyo sonkoro uu jidhku si joogto ah ugu baahan yahay maalin kasta. Marka uu qofku sooman yahay ama uu ku jiro cunto yaraantana, waxa ay jidhka si degdeg ah ugu keenaan faa'iidooyin aan soo tirinay ee uu ka heli lahaa cuntooyin kala duwan ee uu joojiyay ama yareeyay. Timirtu waxa ay ka mid tahay cuntooyinka sida aadka ah u dhaqsaha badan u shiilma, sidaa awgeed faa'iidooyinkeeda iyo raadkeedu ay saacado yar gudahood la falgalaan dhiigga, waxa aanay fududeeyaan shaqada dheefshiidka, iyo weliba inuu cuntada sida ugu fiican u shiido. Timirta waxaa ku jira fiibrooyin dabiici ah oo wax weyn ka tara nidaaminta shaqada caloosha gudaheeda ka jirta, isla markaana yareeya dibirrada mararka qaarkood cuntada kadib la isku arko. Haddaba, marka timirta oo faa'iidooyinkaas leh loo geeyo caanaha oo isku hal waqti la cuno, waxa ay sii kordhiyaan faa'iidooyinka laga filayay oo ay ka mid yihiin: 1. Waxa uu jidhku ka helaa sonkoraha, macdanaha iyo fiitamiinada uu jidhku u baahan yahay. Waxa uu jidhku ka helaa tamar iyo firfircooni. Caanaha iyo timirta isla falgalkoodu waxa ay daawo u yihiin cadhada daran iyo dhaqso u cadhoodka. Waxa ay sidoo kale daawo u yihiin xaaladaha nafsaaniga ah oo qulubta isku buuqa ay ka mid yihiin. Caanaha iyo timirta waxa ay koriyaan xididka dhiigga. Waxa ay daaweeyaan taagdarrada ku dhacda murqaha wadnaha. Waxa ay daaweeyaan calool istaagga aadka ah, gaar ahaan dumarka uurka leh. Waxa ay daaweeyaan xasaasiyadda dadka cuntooyinka qaar ku leh, ama dadka ay cuntooyinka ku yeeshaan. Dadka markay cuntooyinka qaar xasaasiyad ay ku yeeshaan, taasna way daaweysaa. Waxa ay joojiyaan dhiig furanka ama dhiig baxa degdega ah.
waxay caawiyaan caafimaadka kelyaha sababtuna waa fitamiinada ku jira A, B1, B2 iyo B3. Waxay yareeyaan khatarta xiiqda iyo cidhiidhiga saablayda iyo neefsiga. Waxay yareeyaan khatarta ku dhacda xiiqda iyo cidhiidhiga saablayda iyo neefsiga ku dhaca. Waxay ka takhalusaan jeermisyada dhibaatada ku keena ee ku dhasha ama ku tarma caloosha, xanuuno badanna keena. Waxa ay taageerada xusuusta. Waxay yareeyaan calaamadaha gabowga ee waqtigooda ka soo hormari lahaa. Waxay xoojiyaan habdhiska difaaca jirka. Waxa aanay ka hortagaan miridhka sunta cuntada ka samaysanta. Waxa ay uga taraan xanuunka xaglaha ku dhaca ee rheumatism-ka loo yaqaan iyo xubno xanuunka. Waxay furaan ama teedka doonista cuntada. Aanay nidaamiyaan shaqada dheefshiidka ee jidhku ka faa'iidaysanayo cuntada. Caanaha iyo timirta isla falgalkoodu waxay u fiican yihiin daaweynta xanuunada indhaha ku dhaca sida habeenada iyo xuubka indhaha ku samaysma. Intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa cashirkeena aanu maanta ugu talagalnay faa'iidada ay timirtu u leedahay bini'aadamka.